halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo talaada 19 bisha December sanada 2017. arrimahan barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa kamid ah madaxa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR oo booqasho ku jooga xiriyaha qaxootiga ee Dadaab talo muxuu kala hadlayaa dadka halkaas ku nool. ruushka iyo shiinaha oo gaashaanka u daruuray hadallada ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka ee ku sheegay in labadaas dal ay khatar ku yihiin dalkiisa, iyo shir Muqdisho loogu soo gabagabeeyay boqolaal dhalinyaro ah oo ka kala timid gobolada Soomaaliya. haddaba marka ay shireen dhalinyaradaas maxay ogaadeen? waxaan dhihi karaa horta awoodeedii bana laga qariyay haddaan dhalinyaro nahay, maadaama 75% nahay in 25% kale ay mataqaana ay qariyaan. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Bashiir Maxamed Caate, anigoo Cabdifataax Ibraahim Cagayeran aan la socodsiinayo. balse marka hore waxaanu ku bilaabaynaa qodobada wararka caalamka ugu door koronay Cabdinaasir Axmed Sheekh Saxan Saxo. mahadsanid Cagayare. la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dowladda Ruushka ku eedeeyay in ay ku howlan tahay olole casri ah oo ay ku mareen habaabinaysa kalsoonida lagu qabo dalalka ku dhaqma nidaamka dimuqraadiyadda. General HR McMaster ayaa BBC-da u sheegay in ololahaasi uu ka mid yahay faragelintii la sheegay inuu Ruushka ku sameeyay doorashadii sanadkii hore ee Mareykanka, wuxuuna intaas ku daray in uu Ruushka weli dabada hayo kaartooyinkii dagaalkii qaboobaa. saraakiil baarayay shil tareen oo ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sheegay in tareenka qadka ka baxay ee fooda daray wadada baabuurta ay marto oo mashquul ah oo ku taala magaalada Seattle in uu ku socday wax ka badan 2 jeer xadkii loogu talagalay xawaaraha. 85 qof ayaa saarnaa tareenka, waxaana ku dhintay 3 qof halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. maalinkii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayaa lagu guda jiraa gobolka Catalonia ee dalka Spain, halkaasi oo ay doorashadu ka dhacayso maalinta Khamiista. dowladda dhexe ee Spain ayaa 2 bilood ka hor kala dirtay baarlamaanka Catalonia kadib markii ismaamulkaasi uu ku dhawaaqay madax banaani lagu ansixiyay afti dadka laga qaaday. dowladda Japan ayaa ansixisay qorshe ay ku kordhinayso habkeeda difaaca gantaalada iyada oo la rakibayo 2 ka mid ah raadarada Mareykanka ee loo yaqaan Aegis iyo qalabka gaashaanka sawaariikhda. wasiirka difaaca Japan ayaa sheegay in talaabadan loo qaaday halista gantaalada hubka nuclear-ka ee ka imanaysa Kuuriyada Waqooyi awgeed. isbatoore howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada ilaalada xuduudaha ee Norway ayaa lagu qabtay dalka Ruushka, waxaana lagu tuhunsan yahay in uu u basaasayay dowladda Norway iyo hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. warbaahinta Ruushka ayaa tabisay in ninkani oo lagu magacaabo Frodberg lagu eedeeyay inuu helay xog sir ah oo la xiriirta ciidamada badda. ra'iisul wasaaraha Hindiyana ninka lagu magacaabo Narendra Modi ayaa booqanaya koonfurta dalkaasi si uu u soo qiimeeyo qasaaraha ka dhashay duufaano iyo dabaylo xoogan oo ku dhuftay halkaasi 2 toddobaad ka hor. wuxuu la kulmayaa qaraabada boqolaal kalluumaysato oo weli la la'yahay raq iyo ruux meel ay jaan iyo cirib dhigeen, iyo weliba qoysaska dad la xaqiijiyay geeridooda. ugu dambeyntiina waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in markabkii ugu weynaa ee gaadiidka badda ee Mareykanka ee Britain ee lagu magacaabo HMS Queen Elizabeth uu hoosta ka dalooshamay. markabka oo ku fadhiya qiimo ahaan $4 bilyan ayaa la sheegay in ay gudihiisa u muusayaan 200 litir oo biyaha badda ah, waxaana la sheegay in daloolka uu ugu wacan yahay alxansi qaldan meel loogu dhakabiyay oo furtay. Cabdifataax abu mahadsan yahay Cabdinaasir Saxan Saxo ayuu kaasi ahaa inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door koronay kala socotaana waa BBC dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka.
aanu ku bilownay xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxaa haatan ka soconaya shirweyne u dhaxeeya dadka qaxootiga ee halkaas ku nool kuwa martigeliyay iyo madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ninka la yiraahdo Filippo Grandi. Boqoshadiisa ayaa ku soo beegmaysay xilli hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ay ka digtay in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya ay khatar ugu jiraan colaad iyo abaaro. Haddaba umuurtan ayaan goorreed ka wareystay wariyaha BBC-da Bashkas Juk soo dhacay oo isagoo stuudiyaha igula sugan aan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay booqashada waxay ku saabsan tahay booqashada Filippo iyo shirarka maantaba. hadda waqtigan aan hadlayna shir baa u socda marka u dhaxeeya madaxdii marka laga soo doortay deegaanka Fafi iyo deegaanka Dadaab iyo dhinaca kale marka madaxdii qaxootida oo Filippo Grandi maarta la kulmayeen waxyaala marka naanta koowaad la siin doono Abdi Fatah waxay yihiin dhinaca qaxootida waxay ka sheegan doonaan oo u gudbin doonaan Filippo Grandi jarada la jaraya cuntadii caafimaadkii waxbarashadii oo sanadyaad bal marka soo socotay oo noloshooda hoos u dhigaysa dhinaca deegaankana waxay ka cabanayeen waqti kasta ay ka sheegtaan in maaragtay hay'adaha samafalka ay hogaaminaysa UNHCR oo joogaan Dadaab iyo Fafi wixii laga rabay ayna u subinin dadka deegaanka. arrimahan muddo sanada ay soo taagnaayeen oo dadka qaxootiga ah ay ka cabanayeen in dhibaato ay haysato dadka kale ee deegaanada halka loogu yimidna ay ka cabanayeen in deegaankoodii dhibaato la soo gaarsiiyay marka maxaa booqashada Filippo Grandi xilligan ku soo beegay sida loo soo bishii la soo dhaafay ayaa dadka deegaanka muddo maartay todobaad ka badan ay mudaharaad ka wadeen xafiisyo maartay ku yeelan Dadaab ay degan yihiin hay'adaha samafalka ayagoo ka cabanaya kadib marka UNHCR iyo hay'ado kale oo samafal ay sheegeen inay dhimi doonaan tirada shaqaalaha u shaqeeyaan maartay qaxootida taas oo marka dadka deegaanka ay leeyihiin haddii marka la dhimaayo shaqaalaha yaana lagu bilaabin dadka deegaanka waxayna codsanayeen in marka hore la dhimo dadka maartay caalamiga oo wadamada kale ka imaadeen haddana lagu xijiyo dadka Kenyada kale ka imaadeen u dambeystana marka lagu xijiyo dadka deegaanka sababtoo waxay leeyihiin deegaanka ayaa dhibaatada badan marka ay soo gaarta ay keenaan qaxootida ma la filayaa marka maanta in arrimahaas oo dhan heshiis laga gaaro waxaa la filayaa maaragtay in arrimahaas heshiis la gaaro sababtoo tahay madaxdii laga soo doortay Fafi iyo Dadaab waxay hore u sheegeen in ay cid kale ay la kulmayeen oon ahayn maanta Filippo Grandi asaga umba awood u leh inuu marka talaabo ka qaada dhibaatooyinka ay ka cabanayeen labada dhinac qaxootida iyo deegaanka asagana maanta wuxuu joogaa Dadaab oo waqtigan aan kula hadlay wuxuu ku sugan yahay Dadaab wuxuuna la kulmayaa madaxdii qaxootida iyo madaxdii deegaanka. Bashkas Juk soo dhacay uu kaasi ahaa uu iga waramayay shirka haatan ka soconaya xeryaha qaxootiga ee Dadaab uu ku sugan yahay madaxa UNHCR Filippo Grandi halkaasi oo wixii ka soo kordha aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe hadduu ay baydmo balse markan Ruushka iyo Shiinaha ayaa gaashaanka u daruuray hadallada ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku sheegay in labadaas dal ay khatar ku yihiin dalkiisa. arrintan ayaa imanaysa kadib markii isniintii la shaaciyay istiraatiijiyadda cusub ee madaxweyne Trump ee dhanka ammaanka qaranka dhanka kale la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu faraha la galo ololaha doorashooyinka dalal dimuqraadi ah si uu wiiqo kalsoonida lagu qabo hanaanka doorashooyinka dalalkaasi madax bannaan haddaba wararka umuurtaasi ku saabsan waxaa isku soo duway oo nala socodsiinaya Cabdulxaafid Caawil Ismaaciil la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa Ruushka ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan hab casri ah oo lagu shirqoolayo kalsoonida dalalka dimuqraadiga ah General McMaster ayaa BBC-da u sheegay faragelinta uu Ruushku wado inay qayb ka ahayd loolankii doorashadii ka dhacay Mareykanka waxaanu ku eedeeyay inuu Ruushku samaynayo been abuur iyo kala qaybsanaan waxa ay isticmaalaan waa barbagando iyo warar aan sal iyo raad lahayn waxa ay doonayaan inay sameeyaan nooc xiisad ah nooc nacayb ah kaas oo cuuriyaaminaya kalsoonida cidda aynu nahay that undermines our confidence in who we are. General McMaster waxa uu sheegay in istiraatiijiyadda Ruushku ay la mid tahay taatikadii khiyaamada ahayd ee militariga oo la casriyeeyay. This is a Russian approach that has its roots back in the Cold War. Tani waa qaabka uu Ruushku u dhaqmayo taas oo xididalla leh dagaalkii qabooba waxa aynu ku jirnaa waqti casri ah Maskrovka oo la isticmaalayo internetka iyo baraha bulshada. Now
with an added cyber capability and new media such as social media. dhinaca kale ruushka ayaa sheegay inaanay aqbalaynin eedaynta maraykanka ah inuu ruushku khatar ku yahay maraykanka tanoo lagu muujiyey tusmayntii ammaanka qaranka ee isniintii ee lasoo bandhigay afhayeenka ruushka Dmitry Peskov ayaa sheegay markii uu jaleecay istaraatiijiyadaasi ammaanka ee maraykanka inay ula muuqato aragti ay astaan u tahay dal doonaya inuu ahaado awoodda keliya ee caalamka ka jirta laakiin waxa uu sheegay inuu u baahan yahay inuu si fiican u dhuuxo wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa iyaguna maraykanka ku eedeeyay in Washington ku fakarayso caqliyadii dagaalka qabooba oo ay sheegeen inay waxyeeli doonto maraykanka iyo dalalka kaleba ruushka iyo Shiinuhuba way beeniyeen inay khatar ku yihiin maraykanka aad ayuu mahadsan yahay Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi warbixintaasina la socodsiinay halkaad kala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba halkaad weli nagala socotaana waa BBC saacaduna waa 2:10 warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah militariga Myanmar oo sheegay in uu baarayo xabaalo wadareed laga helay waqooyiga gobolka Rakhine ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee Rohingya balse markan magaalada Muqdisho halkaasi oo maanta lagu soo gabagabeeyay shir 3 maalmood u socday dhalinyaro oo kor u dhaafaysa 300 oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya oo dhan shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa intii uu socday waxa lagaga hadlayay duruufaha ku xeeran dhalinyarada sida shaqo la'aanta oo mararka dambe la sheego in ay u xuubsiibato tahriibka ama xagjirnimada dhalinyarada ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Faadumo Ladan Cabdullaahi Suleymaan iyo Maxamed Macalin Maxamed kuwaas oo wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed aadan uga waramay waxyaabihii shirka looga hadlayay iyo waliba loolanada dhalinyarada horyaala waxaa hadal ku hormaraysa Faadumo meeshan waxaan laga hadlayay siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliya waxyaalo badan baa ka soo baxay waxaan falanqeynay oo ka wada hadalnay dhibaatooyinka jira oo dhalinyarada haysta sida tahriibka xagjirnimada shaqo la'aanta waxa ugu badan oo aan xoog saarayna waxay ahayd in laga hadlo bal shaqo la'aan baa la sheegay horta ma shaqo la'aan baa jirta mise shaqaale la'aan inta badan waxa la isla afgartay oo dadku ay u badinayeen dhalinyarada fikradooda ay u badinayeen in ay jirto shaqaale la'aan oo dadku ama ha ahaato xirfad yari jirta oo dhalinyarada inaysan xirfado ku filan lahayn oo ay ku shaqeystaan oo qof kasta intuu jaamacad ka soo baxay uu doonayo aqoontii guud inuu ku shaqeysto taasina ay caqabad badan tahay marka waxyaalaha aan ka hadalnay waxa kamid ahaa in dadka bal xirfad abuuris loo sameeyo oo la baro sidii ay gacanta uga shaqeysan lahayn farsamooyinka gacanta oo kale la baro maxamed baydhab ka timid adigu 3 maalmood shir ku socday maxaa kaaga baxay waxaan naga soo baxday walaal dhalinyarta afkaartoodii iyo aaradoodii iyo dhibaatada haysato ayaa waxyaabo badan ay ka wada hadleen waxaan naga soo baxay marka mustaqbal ifaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobi rabaan ay iskaashan doonaan ay xalin doonaan dhibaatooyinkooda haysta haddii ahaan lahayd waxbarasho la'aanta shaqo la'aanta xagjirnimada Faadumo tahriibka ayaa xoog looga hadlay gobolkaad ka timidna wuxuu ka mid yahay gobolada inta badan dhalinyartu intay ka tagto ay tahriibka tagto markii doodaas xoog la saarayay maxaa xal laga gaaray dooda ku saabsan tahriibka Ibrahim waa runta dadkii waliba aadka uga hadlayay oo arintaas sida isha gaarka ku fiirinayay ban kamid ahaa sababtoo ah in badan baan la kulmay qoysas aan garanayo oo iyagoo aan awalba noloshooda maareyn karin haddana ay caruurahoodii badda isku gureen waliba hadda waqtiga hore waxa taariikh jiray dhalinyarada 20 sano iyo wixii ka weyn laakiin hadda waxa ay dhalinyarada tahriibta waxay ugu badan yihiin dhalinyarada ka yar 20 sano ilaa 15 16 17 sano bay u badan yihiin taasina waxa keenta in dhalinyar ilmahan isagoo aan garanayn nolosha ka horeysa waxa meesha ugu horeeyay aan garanayn laga yaabay inuu ka niyad jabay in reerkooda nolosha ay ku nool yihiin oo kale haddana waxa jirta dad badan oo u fududeynaya marka waxyaalihii aan ka hadalnay oo inta badan xoog saarnay waxa kamid ah bal in dawladdu ay siyaasad cad ka yeelato arintan oo lagu xakamaynayo alxamdulillah dawlad fiican baan leenahay door badan waxa ay ka qaadatay dawladeenu hadda sida muuqata siideynta maxaabiista wadamada shisheeye ku xidhan oo kale marka doorkaas oo kale oo cad inay ka qaadato dawladdu oo wadamada dhulka ay maraan oo kale wada xaajada la yeesho oo la yiraahdo warbal dadkan wax nagala qabta oo wadamadiina soo marayaan wax nagala qabta sidoo kale wadanka gudihiisa waxa jira dad mukhalasiin ah marka in dadka ruuxooda loo sameeyo ilaalo gaar ah oo la daba galo oo la soo qabtay wali ilaa hadda ma aanan arkin qof la soo qabtay oo dadka tahriibin jiray oo Soomaaliya gudaheeda inta la soo qabtay
qofkan baa loo hayaa mukhalasnimo. maxamed xagjirnimada kamid wixii laga hadlayay gobolada koonfurta iyo dalka oo dhan waxaa muuqata dhibaatada xagjirnimadu ay yeelatay. ka waran gobolkaad ka timid xagjirnimada iyo wixii aad shirka la timaadeen. xagjirnimada markii laga hadlayay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baa saamaysay. Ana gaar ahaan hadda waxaan moodaa in wacyigelin badan la sameeyay dadkii inta badan ay fahmeen qaabka wax ay yihiin ummadan la qalday oo afkaarta diiniga oo sida qaldan loo fasirina hadda ay noqonayso in wadaadda loo helay dhalinyarada loo helay ay hoga afkaarta isbedelmayso. waxaa arkaysaa in dadkii ugu weynaa xagjirnimada naftigeeda aasaasayba in hadda ka soo baxayaan. Faadimo 300 oo dhalinyaro ah in ka badan ayaa halkan isugu yimid gobollo kala duwan ay ka kala yimaadeen. marka dhaxgasho la sheekaysatay maxaa kaaga baxay? waxaan arkay dhalinyaro badan oo kala aragtiyo duwan in dhammaantoodna u heelan Soomaaliya oo mataqaanaa mid ah iyo Soomaaliya oo mataqaanaa meesha aan wada doonayno gaadha. ra'iisul wasaaraha ayaa kamid ahaa dadkii shirka nagala soo qayb galay waliba isagoo maalintii ugu horeysay noo furay khudbad qurux badan oo dheerna noo soo jeediyay. hadaladiisa waxaa kamid ahaa inuu yacni ku soo celceliyay in dhalinyarada Soomaaliya ay ka yihiin 75%. marka waxaan dhihi karaa horta awoodeedii bana laga qariyay haddaan dhalinyaro nahay maadaama 75% nahay in 25% kale ay mataqaana ay qariyaan oo nahay gareeyaan. maxamed markaad 300 dhalinyaro ah oo gobollo kala duwan ka yimid aad la kulantay oo aad la sheekaysatay maxaa ra'yigaagii hore iska bedelay? أول دتك قبيل وسامين جري دتك كل حرنايين ودتك عقدة كجرتي قفل أصلها إن كان سان واي قبل هبل واي حتى لك محمد إن وحي أيضا ما هبطوا دتك يصلح جليان المستقبل في عام باين مقدانية عندي سان كسعته وحرجين يا إن صومالي من قندنته أو لبعتوين كان هبدا أنت جرت نود من اللي بيهدونه. waxay ahaayeen maxamed macalin maxamed iyo fadumaladan cabdullaahi suleymaan oo u waramayay waryahayaga magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. haddaba facebook ay dhegeystayaal badan ra'yigooda kaga soo dhiibteen. maxamed cawl axmed oo jooga magaalada boosaaso wuxuu leeyahay shirka muqdisho ee dhalinyarada gobolada ka timi loogu qabtay waan bogaadinaya waana soo dhaweynayaa. runtii in maanta dowladdu kulansiiso waa tallaabo wanaagsan waana in wax loo qabtaa ubaxii wadanka oo ah mid u baahan in la kaalmeeyo lana garab istaago. saxridii xashar daale oo boorama jooga soo koray doonaya dhegeystayaasha wuxuu leeyahay shirkaasi muqdisho lagu soo gabagabeeyay dhalinyarada gobolada Soomaaliya uga socday maalmahan halkaasi ma ahan mid wax soo kordhinaya waayo dhalinyarada Soomaaliyeed waa cududda shacabka Soomaaliya waana bulshada waxay ka yihiin buu yiri 70% hadana waxa mustaqbalkoodii noqday kuwa tahriiba kuwa balwad waasha iyo kuwa kale oo kooxaha la dirsan dawladda raaca waxaana looga fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay bedelaan dhaqankaasi. waxaan qaar ka mid ah BBC ee Facebook halkaad weli nagala socotaana waa BBC ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse markan militariga Myanmar ayaa waxa uu sheegay in uu baarayo xabaalo waradeed laga helay waqooyiga gobolka Rakhine halkaasi oo qaramada midoobay ee mas'uuliyiinta wadankaasi ku eedeysay in ay gabadfallo u geysanayaan muslimiinta Rohingya. Abduqaadir Yuusuf ayaa warbixintan inoo haya. fariinuu bartiisa Facebook soo dhigay taliyaha ciidamada Myanmar General Min Aung Hlaing ayaa waxa uu sheegay in meydad aan la aqoonsan laga helay xabaalo u dhow deegaanka Mungdow oo ka mid ah meelaha ay dhibaatada weyn ka dhacday. sharaxaad kama uusan bixin tirada meydadka ama qowmiyadda ay ka tirsan yihiin. waxa uu intaa ku daray in tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay caddaato in laamaha ammaanka ay ku lug lahaayeen dilka dadkaasi. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa toddobaadkii hore sheegtay in qiyaastii dad ka badan 6,700 oo Rohingya ah ay ku dhinteen bishii koobaad ee colaadda Myanmar kadib markii ay ciidamada dalkaasi duulaan ku qaadeen gobolka Rakhine dhamaadkii bishii August. waa tahay kaasi waxa uu ahaa Abduqaadir Yuusuf oo warbixintaasi goor dhaweydina soo gaartay nala socodsiinayay. markana intaanan baafinta u galin ciyaarihii balaan eego ciyaaryahanka khadka dhex uga dheela kooxda Everton waa Sigerson ninka la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in tababaraha cusub ee kooxda Sam Allardyce uu kooxda u keenay amaba dib ugu soo celiyay rumaysiga ay rumaysnaayeen inay yihiin koox weyn. Sigerson ayaa waxa uu dhaliyay gool iyadoo waliba xalay ay 3-1 ka adkaatay
kooxda Everton kooxdiisii hore ee Swansea, taas oo ka dhiganba in kooxda Everton ay kor uga soo kacday kooxihii hoose ee liiga ama horyaalka Ingiriiska, iyadoo haatan ku jirtaba kaalinta 11aad. waa tahay dhanka kalena waxaa la filaya in ciyaaro kale ay dhacaan oo ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta adduunka, balse wixii ku saabsan ciyaarahaasi idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan. markanse barnaamijkii baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha, mahadsanid Cabdiqaadir. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Fartuun Axmed Cumar oo joogto Galgaduud. waxay baafinaysaa Axmed Jaamac Cumar, waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2013. haddaba haddii uu maqlayo Axmed Jaamac Cumar ama bay jirto cid garanaysa, fadlan markiisa hal gaarsiiyo Fartuun Axmed Cumar, ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Galgaduud, ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 1817 2212. Qaasim Yuusuf Axmed oo jooga Afgooyana waxa uu baafinayaa Luul Qaasim Yuusuf, waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada London sanadii 1993. haddaba haddii ayna maqlayso Luul Qaasim Yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Qaasim Yuusuf Axmed, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooye, ama taleefanka nambarkiisu uu yahay 2526 eber 6 989 4674. mukhtaar aadan geelle oo jooga Galgaduud waxa uu baafinayaa Ubax Mukhtaar Aadan, waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga 2013. haddaba haddii ayna maqlayso Ubax Mukhtaar ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Mukhtaar Aadan, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Galgaduud. Shamis Cabdalla Saalim oo joogta Afgooye waxa ay baafinaysaa Maryam Cabdi Saciid, waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 1995. haddaba haddii ayna maqlayso Maryam Cabdi Saciid ama ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Shamis Cabdalla Saalim, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooye, ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 Sacdiyo Salaad Xaashi oo joogta Galgaduud waxay baafinaysaa Xaawo Xasan Cusuble, waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya 2003. haddaba haddii ayna maqlayso Xaawo Xasan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sacdiyo Salaad Xaashi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Galgaduud. Xaliimo Cabdi Aadan oo joogta Afgooyana waxay baafinaysaa Jacfar Cabdi Jaamac, waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong sanadii 1991. haddaba haddii uuna maqlayo Jacfar Cabdi Jaamac ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaliimo Cabdi Aadan, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooye, ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 247 947 eber. Maryan Cali Shire oo joogto Marko waxay baafinaysaa Axmed Maxamuud Saciid, waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan 2005. haddaba haddii uu maqlayo Axmed Maxamuud Saciid ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maryan Cali Shire, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Qoryooley. Saqaawe Cabdiqaadir Liibaan oo jooga Afgooyana waxa uu baafinayaa Mawlid Liibaan Cabdi, waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada London sanadii 2000. haddaba haddii uuna maqlayo Mawlid Liibaan Cabdi ama ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Saqaawe Cabdiqaadir Liibaan, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooye, ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 eber 8934. Faarax Mahdin Cali oo jooga Heliweyn waxa uu baafinayaa Shamso Aadan Xamiid, waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Liibiya 1995. haddaba haddii ayna maqlayso Shamso ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faarax Mahdi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Heliweyn. Mukhtaar Cabdi Salaad oo jooga Buulamareerna waxa uu baafinayaa Mahdi Mukhtaar Cabdi Salaad, waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland sanadii 1995. haddaba haddii uuna maqlayo Mahdi Mukhtaar Cabdi Salaad ama ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mukhtaar Cabdi Salaad, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buulamareer, ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 77 eber 5 eber 99.
cabdulaahi xasan ibraahim oo joogo heliweyn waxa uu baafinayaa maxamed xasan ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 1995 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi xasan ibraahim ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay heliweyn ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 xaawo cumar aadan oo joogta Walaweyn waxa ay baafinaysaa Faadumo Cumar Aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Kampala sanadii 2005 haddaba haddii ay maqlayso Faadumo Cismaan Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xaawo Cumar Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 cabdi xasan aadan oo joogo afgooyo waxa uu baafinayaa jaamac cabdi xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong 2000 haddaba haddii uu maqlayo jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi xasan aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooyo ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 Safiya Ahmed Abdullahi oo joogta Walaweyn waxa ay baafinaysaa Ruqiya Maxamed Xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1993 haddaba haddii ay maqlayso Ruqiya Maxamed Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiya Ahmed Abdullahi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 Marian Abtidoon oo joogto afgooy waxay baafinaysaa Fayza Xasan Jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada 1991 haddaba haddii ay maqlayso Fayza ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Marian Abtidoon iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooy ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 Marian Cabdi Kuulow oo joogta afgooyana waxa ay baafinaysaa Layla Cabdi Kuulow waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1999 haddaba haddii ay maqlayso Layla Cabdi Kuulow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Marian Cabdi Kuulow iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooye ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 Sharif Aadan Xasan oo joogo Walaweyn waxa uu baafinayaa Cali Sharif Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 1995 haddaba haddii uu maqlayo Cali Sharif Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Sharif Aadan Xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 Khadiija Aadan Cabdisalaad oo joogta Walaweyn waxa ay baafinaysaa Aadan Ibraahim Xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 1990 haddaba haddii uu maqlayo Aadan Ibraahim Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Khadiija Aadan Cabdisalaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 Nuur Cabdi Cali oo joogto Walaweyn waxay baafinaysaa Xasan Geela Guuleed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 1993 haddaba haddii uu maqlayo Xasan Geela Guuleed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Muuna Cabdi Aadan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 Faadumo Maxamed Aadan oo joogta afgooyana waxa ay baafinaysaa Abikar Maxamed Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Zambia sanadii 2005 haddaba haddii uu maqlayo Abikar Maxamed Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faadumo Maxamed Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooye Xabiibe Isaaq Ibraahim oo joogto Kuntuwaare waxay baafinaysaa Cabdinaasir Xasan Shariif waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2000 haddaba haddii uu maqlayo Cabdinaasir Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xabiibe Isaaq iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kuntuwaare ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 89 46
daawud maxamed cumar oo jooga afgooye waxa uu baafinayaa mallow daawud maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2005 haddaba hadii uu maqlayo mallow daawud maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo daawud maxamed cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 789 56 eber 7 abuukar xaaji abaanuur oo jooga qoryoole waxa uu baafinayaa Yunis Abuukar Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Hindiya 2000 haddaba hadii uu maqlay Yunis Abuukar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abuukar Xaaji Abaanuur ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qoryoole ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 eber 6 2454 eber 7 mulki maxamed axmed oo joogta afgooyana waxay baafinaysaa Saciida maxamed axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 1999 haddaba hadii ay maqlayso Saciida maxamed axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo mulki maxamed axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 eber 6 785 8467 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Jamiila Sheekh Xasan Amiin oo joogta afgooye waxay baafinaysaa Sabriya Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2004 haddaba hadii uu maqlayo Sabriya ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jamiila Sheekh Xasan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 eber 6 3934 eber 55 baafintana maanta waa naga intaas caashay cabdulqaadir aad bay u mahadsan yihiin intaan waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii uu soo saaray Bashiir Maxamed Caataan iyo Cabdi Ibraahim Caageelna la socodsiinayay cidii uu dhaafay barnaamijkan waxay dib uga daalan kartaa barteena internetka ee bbcsomali.com sidoo kale Facebook ayaad eegi kartaan oo ra'yigiina ka soo dhiban kartaan oo bixina dhawaan halkaas ku daabacnay inagoo soo qaadan doona hadba cidii ay noo soo ragasho barnaamijkan waxaynu offer sameynay Jeff Soke intaan dib u kulmi doono 5 galabnimo hadduu ay baydno sidaas iyo nabadgelyo